fariintan oo ka timid guddoonka golaha shacabka iyo sidoo kale guddoonka aqalka sare ayaa waxaa loo wada diray dhammaan baarlamaanka labadiisa aqal ama labada gole xildhibaanka sharafta leh berri oo arbaco ah taariikhduna ay tahay 28 bisha koowaad 2026 waxaa jira kulan wadajir ah ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ajandaha waxaa lagu sheegay warbixinta guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ee cutubka 5 ilaa 9 ee soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka ajandaha qaybta koobaad waxaa la yiri waa warbixin sida la sheegay laga dhageysanayo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka yani qabiyatirka dastuurka guddiga qaabishana waayo iyo wax ka bedelka qodobka labaadna waxaa lagu sheegay qaybinta shintirsiga wax ka bedelka dastuurka cutubyadiisa 5 ilaa 9 waxaa la qaybinayaa nuqollada ajanduhu waa labadaas goobta uu kulanku ka dhacayo waa Villa Hargeysa waqtigan waxaa la yiri waa 4 subaxnimo 10 subaxnimo loo yaqaan ya 4 saac oo subaxnimo ka rabtid waxaa laga codsanayaa xildhibaanada sharafta leh in ay ilaaliyaan waqtiga mahadsanidin ayaa la yiri fariintaas ayaa ka timid golaha shacabka marka arintani waxay tusaaleynaysaa berri oo 28 ka ah dastuurkii faroole waa laga dhaqaajinayaa waxaa la meel marinayaa dastuur Soomaaliyeed leedahay oo baarlamaan Soomaaliyeed uu meel mariyay ayaa berri wixii ka dambeeyay waliba berri waxaa halkaas ku dhamaanaya isqabqabsigii Soomaaliya waxay ka xoroobi doontaa xagga shuruucda dastuurkanina ma aha wax meel iska yimid ma aha qaabka wax looga bedelay isla asagay ku qoran tahay hadda akhriso sidoo kale waxa kale oo meesha ku jira qof kaste oo murashaxay oo xilka madaxweynenimada Soomaaliya u tartamay waxa uu ku qodbeeyay in uu hadii la doorto dastuurka dhameystirayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisana tii ay ku dadaashay baarlamaanka Soomaaliyana berri ayuu ka shaqeynaya hadaba meeshaas waxa ku dhamaanaya dastuurka Soomaaliya waa qabyo halkaas ku dhamaatay ra'iisul wasaare madaxweyne iska dabaloolanayna halkaas ayuu ku dhamaatay madaxweynayaal maamul goboleed iyo hadda waxa loogu yeeri doonaa hogaamiyaasha dawladda maamul goboleedyada ayaa loogu yeeri doonaa madaxweyne Soomaaliya hal bay yeelan doontaa macal cirra wuxuu noqon doonaa hogaamiyaasha ayuu ku biiri doonaa Soomaaliyana waxaan aaminsanahay dabarkii ayaa ka fuqaya dhawaan waxaa jira in dalka ay ka baxayaan qolihii C6 Plus ee xalane ee dalka kor ka maamuli jiray arintaasi waa la soo gabagabeeyay xafiiskana dhawaan waa la xirayaa sidoo kale AMISOMna way baxaysaa dhawaan Soomaali baa isu haraysa Soomaali markay isu hartana dastuur dhameystiran iyo dawladnimo ayaa loo jihaysanaya sidoo kale waxa dhawaan baxay Imaaraadkii waa ay bixin dalka shidaal baa loo qodaya argagixisana waa la soo afjaraya nidaamka goonay u goosadkana hal lagu ku tagan yahay oo liiqliiqanaya ana qabatayntii hubka waa la qaaday bariga Afrika Soomaaliya ku beeshtay qaramada midoobanay Soomaaliya ayaa hadda madaxweyne ka ah oo shir gudoomisa sidoo kale Soomaaliya waxay ku jirtaa ururo waaweyn oo caalami ah ururo badan oo Soomaaliya xilligan ay saameyn ku leedahay sidoo kale heshiisyo culus oo waxa jira dhawaan soo socda oo Soomaaliya heshiisyo amni ah oo Soomaaliya la yeelanayso Sacuudiga iyo sidoo kale Pakistan Masar iyo wadanka Turkiga badaha Soomaaliya baylaha siima ahaad doonaan amnigooda waa la sugi doonaa dhawaan ciidamo badeedna waa la dhisay ciidamada Soomaaliya cirkana waa la dhisay hub iyo diyaaradana waa loo iibiyay dalka qaybo badan oo kamid ah waa la xoreeyay doorasho qof iyo cod ah gobolka Banaadir way ka dhacday nabad buuxdana waa ay ka jirtaa nadaafadii ay shacabku u istaageen hadaba Soomaaliya cusub waa la soo wada dhaweynaya sidoo kale waxaa jirtay in dhawaan golaha mustaqbalka iyo dawladda federaalka wada hadal u socdo warqadii dawladdu ay soo saartay waxa jirtay warqad kale oo maanta ka soo baxday golaha wasiirada madasha mustaqbalka dhawaan waxa jirtay gogol loo fidiyay oo xukuumadda Soomaaliya u fidisay waxaana jirtay maantadan la joogo warqad dawladda ka soo baxday oo wada tashiyo bulshada qaybooda kala duwan lagu la sameeyo sida ururada bulshada iyo sidoo kale culimada warqadan waxay ka soo baxday guddiga wasiirada ee wada hadalka u qaabisan waxayna soo saareen war-saxaafadeedkan 27 Janaayo oo maanta ahayd xukuumadda federaalka Soomaaliya iyada oo ka duuleysa tala soo jeedinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud
ayaa 19 Janaayo 2026 ay ku dhawaaqday in 1 Febraayo 2026 magaalada Muqdisho lagu qaban doono gogol wada hadal qaran taas oo u dhaxaysa dawladda iyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyadoo taas laga tixraaciyo guddiga wasiirada ee wada hadalada u qaabishan xukuumadda ayaa maanta oo taariikhdu tahay 27 Janaayo 2026 bilaabay wada tashiyada qaybaha bulshada iyo saamilida siyaasadda waxaana maanta qabsoomay wada tashiyadii koowaad oo ay ka soo qayb galeen dalada ururada bulshada rayidka iyo midowga golayaasha culimada Soomaaliyeed qodobada wada tashiyada diiradda lagu saaray waxa lagu sheegay wadajirka iyo midnimada qaranka amniga iyo la dagaalanka khawaarijta dhamaystirka dastuurka doorashooyinka xaaladda abaaraha ayaa lagu sheegay guddiga wasiiradu waxa ay ka mahad celinayaan wada tashiyada maantay oo ay la yeesheen qaybaha bulshada waxa kale oo ay ka mahad celinayaan aragtida iyo talooyinka wax ku oolka ah oo ay la wadaageen ayaa lagu yiri warqada markii arkeen qolihii madasha mustaqbalku aad bay arintaas uga xumaadeen waxayna ku tilmaameen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu soo wada hadal u soconin arintaas aad uga soo horjeesteen oo waxay leeyihiin dalku inuu burburo ayaan laga baqayaa xaaladda macna waxay leeyihiin dalka burburaya hadii annaga cid aan ahayn lala tashto يعني ما أقولين عد كلا إن دولة تشطر ولا تشجع وحرمني أنا بس إني لا هذاش عد كلا لا سي حل كرتمالي مرك دولة كارت اللي بتقدر استعمالها سا جوجل فرن وجديد أنا كان جوجل خاصة أنا لو كلها الله يرضى مركو على سمينا معلومها كده من كود فبراير وعلى سمينا ولا تشجيع على سي بلابا هذا وحلا الشري أورده برشة رأيت كي علماء ولا الشري جديدة علماء وحلو جد بيا سياسيين توصيدوا كلام ساميلي السياسة أو أورده كجيران sidoo kale wax badan lagu heshiinaya meel waxa la isla sidhigaya iyaguna dadkaas talada wax laga weydiinayo oo doorashada wax laga weydiinayo iyo amniga iyo dhameystirka dastuurka ay ka mid yihiin iyagu marka ma rabaan idan iyaga ahayn in doorasho laga hadlo ama dalka arrimihiisa laga hadlo ma rabaan qolada mustaqbalka sheegatay waa afar imaaraatiya iyo laba maamul goboleed oo isla socota wax kale meeshaas ma yaalin marka qoliyahan madasha mustaqbalka la baxay niman caadi ma aha Soomaaliya dhan waxay rabaan iyaga cidaan la tashay hatta waxay rabaan waxaan u malay doonaa hadii dalka doorasho ka dhacdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa doorasho qof ciidan ka dhacdo wixii dadbana ilaahay noo soo celin ayagu mid dadbaneed iyo dastuurkii faray ku dhagan yihiin laakiin hadii doorasho ka dhacdo qof aan annaga hayn haduu guuleysto yeeli mayno ay la soo istaagi doona laakiin ciidu kama yeeli doonto Soomaaliya way ka soo gudubtay xilligii qabqablayaal go'aamadooda kaliya lagu shaqay jiray bulshada Soomaaliyeed dhammaan ururada bulshada reedka la tashanaya culimada la tashanaya siyaasiyiinta kala la tashanaya ururada isdiiwaan galiya la tashanaya nooc walba Soomaali kamid ah la tashanaya iyaguna dadkaasi kamid yihiin laakiin annaga teena bisa soconaysa wax soconaya ma aha hadaba adiga aragtidaada dastuurkeena dhameystir suuragal ma tahay sidoo kale gogasha Muqdisho taala oo madasha mustaqbalka iyo filla Soomaaliya u dhaxaysa in lagu guuleysto suuragal ma tahay aragtida waa inuu muhiim xagga seefaladan ugu rab hadaba adiga aragtidaada dastuurkeena dhameystir suuragal ma tahay sidoo kale gogasha Muqdisho taala oo madasha mustaqbalka iyo filla Soomaaliya u dhaxaysa in lagu guuleysto suuragal ma tahay aragtida waa inuu muhiim xagga seefaladan ugu rab wassalaamu calaykum